والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan markii saddexaad sii wadi doonaa barnaamijkii muraajacada ahaa. waxaan ka soo baxnay homologous series ka qaybtiisii koowaad ee ahayd alkiniska. waxaan u gulaynaa hadda alkiniska. waxaan soo baranay alkeinka inaan ku qeexi jiray in homologous seriesku dabarta u dhaxaysa labada carbon ay tahay single bond marka ugu horeyso. number 2 uu yahay saturated hydrocarbons. number 3 waxaan ku soo sheegay in general formulada guud ee uu yeelanayo alkeinka uu ahaa CnH2n+2. alkeinka aan ku xasuusinayaa general formuladiisi waxay ahayd CnH2n+2. n-tan waxay ii matalaysaa aan dhahay number of carbons ka ii matalaysaa ama tirada carbonna aan haysto. number of carbons ka magacyaan u sameeyay waa xasuusataa. koow hal carbon markaan haysto waxaan soo dhahay meth la dhahaa. labo macnaheed eth waaye. saddex carbon markaan joogo prop aan ku magacaabayaa. inta dambe ee aan gadaal uga daraayo ama suffixka waxa ay xukuma hadba functional groupka aan haysto. hadda waxaan u galayaa alkiniska. marka ugu horeyso waxaan u baahanahay inaan qeexitaan u sameeyo alkiniska. alkin waxaan ku qeexayaa inuu yahay alkinisku waxay ahaayeen saturated hydrocarbons leh single bond u dhaxaysa labada carbon dhexdooda. alkin waxaan ku qeexayaa inuu yahay unsaturated hydrocarbon inuu yahay aan ku qeexayaa unsaturated hydrocarbon. HC waan isu soo waafaqnay oo waxaan dhahay hydrocarbon aan ka soo gaabin doonaa mar walbo. waxaa leedahay between two carbons oo silsilada dhexdooda ku jiro ayaa waxa u dhaxaynayso dabar laba xaba ah. si aan u dhaho waxaa la dhahaa this type of homologous series waxaan ku magacaabayaa alkinis aan u bixinayaa. markaan u baahanahay inaan general formuladeedii ogaado tii hore waxay ahayd CnH2n+2. alkinka general formuladiisu waxay noqonaysaa CnH2n. waa general formulada cyclo alkinka uu leeyahay ayay la mid tahay. madaxa ku hay cyclo alkane iyo alkinis labaduba waxa ka dhaxayso same general formula leeyihiin. qaanuunkoodii ama qaacidada loo isticmaalayo isku mid waaye. labaduba waxa loo isticmaalayaa CnH2n. number of carbons ka iyo hydrogenisku times 2 ayay isu jiraan mar walba. waxaan leeyahay si aad u ogaatid labadooda sometime waxay isu noqon karaan wax loo yaqaan isomers isu noqon karaan. waxaan leeyahay general formuladeedina waa CnH2n. markaan u baahanahay inaan nomenclature u sameeyo ama aan magacaabisteedii sheego waxaan leeyahay the same way ee aan u soo magacaabay alkiniska ayaan u marayaa. kaliya waxaan ka bedelayaa laba meel. meesha ugu horeyso tirinta carbonada waxaad ka bilaabaysaa meesha ugu dhow ee double bondiga ay jirto. number 2 magaca markaad dhameysid waxaad ku dhamaynaysaa suffix ama wuxuu ku dhamaanayaa dhamaad ah inuu ku dhamaanayaa. halka alkenis markaan joogay aan ku dhamayn jiray suffix ah inaan ku dhamayn jiray ama ane uu ku dhamaan jiray. tusaale ahaan haddii aan u baahdo inaan magacaabo structure-kan soo socdo kale. haddii number of carbon ka aan u baahdo hydrogenadiisa inaan dhammaystiro formuladan la aadaya oo waxaan leeyahay number of carbons ka aan haysto hadda waa imisa 4 carbon aan haystaa. waxaad xisaabisaa number of hydrogenes ku meeqay noqonay. number of hydrogenes waxaa leeyahay waxaa lagu helaa 2n bas. awal number of hydrogenes ka alkane waxaa lagu heli jiray 2n+2. waxaan rabaa inay isku xirnaadaan. number of hydrogenes kan waxaa lagu helaa just 2n. n hadda qiimaheedu meeqay la eg tahay. n waxay ii tilmaamaysaa number of carbons ka. number of carbons ku waa imisa 1 2 3 4 carbon. 2 oo aad ku dhufatay 4 waxay ku siinaysaa 8. number of hydrogenes kaygu waxay noqonayaan 8. sideen u gelinayaa carbonada darafka jira mar walba waxay qaadanayaan carbonada darafka jira banaanka jiro mar walba waxay qaadanayaan min 3 hydrogen ay qaadanayaan. kuwa dhexda ku jira waxa u fiirinay garbaha carbonka uu leeyahay waa imisa. carbon walba waxa laga rabaa inuu yeesho 4 garab. carbon tan oo kale labaad
markii aan dhinacan bidixda ka soo xisaabiyo waxaan leeyahay originally ama hadda waxay leedahay already 3 garab 1 2 3 meeqa garab ka dhiman hal xabo waxaan ku dhameystirayaa hydrogen structurally sidaana ugu dhajin karaa afarteedii garab way u dhameystantaa tanna waxay leedahay iyadana sidoo kale 3 garab oo garab waa kan 2 garabna meeshan oo dambe dhanka bidixda ku haysataa soo waxa ka dhiman iyadana hal hydrogen sideedii hydrogen ee kor aan ku soo xisaabiyay hadii aan gacmaha la galoon xisaabiyo way iimaanaysaa oo waxa meeshan ku haystaa 3 hydrogen meeshan waxaan ku haystaa 3 hydrogen oo markaas ku daray 6 hydrogen noqonay labadan hydrogen markaan u geeyno waxay noqonaysaa 8 hydrogen waxaan u baahanahay inaan magacaabo hadii structure-ka uu dhameystiran yahay sawirkiisa waxa la iga rabaa inaan magacaabo magacaabis waxaan dhigi jiray marka ugu horeysa waxay raadinaysaa silsilada ugu dheer ee xambaarsan kaarboonada silsilada ugu dheer ee kaarboon xambaarsan straight chain kaas waaye oo farac la'aanta ah wuxuuna xambaarsan yahay 4 kaarboon number 2 waxa la yiraahdaa waxaad raadinaysaa branch may leedahay mase waan fiiriyo dhamaan wax branch ma lahan okay waxa la iga rabaa inaan fiiriyo meesha ay ku leedahay double bondida waxay ku leedahay hadii dhanka midigta laga soo tiriyo 1 kaarboonta labaad hadii dhanka bidixda laga soo xisaabiyana 1 kaarboonta labaad yani hadii si kala loo dhigo midigta ka soo xisaabiso ama bidix labada mar double bondiga same position soo istaagaysa oo kaarboonta labaad waxay yeelanaysaa double bondida saadarteed structure noocan oo kale marka aragtid waxaad xor u tahay numbereynta positionka doonta ka bilaabi kartaa hada aniga midigta aan si raaco waxa leeyahay wuxuu ii noqonayaa carbon 3 this wuxuu ii noqonayaa carbon 4 oo ii noqonayaa waxa u baahanahay inaan magacaabisteeda dhameeyo hadii aan arkay meesha ay inta dhigmayso ama double bondiga positionkeeda waxa leeyahay 4 carbon markaan haysto waxaan ku magacaabi jiray bute 4 carbon markaan haysto waxaan ku magacaabi jiray bute dhamaadkan ama suffixkan inta ka dhiman waxaan dhahay hadba waxay ku xiran tahay functional group-ka aad haysato hadda functional group-kan aan ku jiro waa unsaturated alkenes aan joogaa oo double bondia soo waxaan leeyahay waxaan haystaa butene ina u dambaysiinaya hal su'aal aan u baahanahay inaan ogaado jawaabteeda oo iga harsan waxay tahay kaliya ma butene ku deynaya mase waxba ka dhiman waxa leeyahay fikradda ugu muhiimsan ee waxa ka maqan intan intee la gelinaya markay structure-ka la sawiraayo jawaabteeda ka maqan waxaan leeyahay waxaad leedahay number ahaan uga hormari meeshan waxa ku qortaa 2 hyphen u samay butene dheh 2dan waxay sheegaysaa meesha ama positionka ay dabarta labada xabaa taalo waxay tilmaamay positionka dabarta labada xabaa ay jirto waxaan leeyahay iobag systemka ama generally magacaabista alkene sidaas loo magacaabaa dhamaadkeedii alkene waxay leedahay sidii alkene oo kale si lamida isomeres wax loo yaqaan isomeres horaan soo qeexay oo waxaan dhahay waa compounds leh same molecular formula laakiin ku kala duwan structural formula kala duwan leh waxaan leeyahay meesha markaan joogo alkeneska 3 types of isomer uu samayn karaa oo possible ah nooca koowaad waxa loo yaqaanaa chain isomerism macnaheedu waxa waaye structure-kan hadda meesha yaalo molecular formula ahaan hadii aan u rogo wuxuu noqonayaa 4 carbon iyo 8 hydrogen hadii aan molecular formula ahaan u rogo waxay noqonaysaa 4 carbon iyo 8 hydrogen anigoo 4 carbon iyo 8 hydrogen sawiraayo ayaa waxaan u sawiri karaa qaabab kala duwan waxaan u sawiri karaa qaab ah noocan hadda uu igu sawiran yahay oo lagu magacaabo normal butene waxaan kala u sawiri karaa nooca koowaad horta aan qoro magaciisa waxaan ku soo magacaabay inuu ahaa chain isomerism waxaan leeyahay wuxuu noqon karaa structure-kan isagoo noocaas isku haysto ayaa waxaan soo qaadi karaa mid kamid ah kaarboonada oo waxaan ka dhigayaa chain ama branch farcan ka dhigayaa waxaan leeyahay meeshan branch C oo CH3 labadan kaarboon ee darafka jiro mid kamid ah double bondiga C let's say tusaale dhinacaan oo kale aan siina double bondiga ujeeda hadda molecular formula aan wili joogaa waa u dhameystiri karaa number of hydrogenskayga waxa leeyahay number of hydrogenska meesha ma kala joogo waxa ka dhiman 3 xabo inta markaan taaganaan waxaan siinayaa 2 xabaan siinayaa number of carbon ka ay sitid waa 1 2 3 4 carbon number of hydrogenska waa 8 oo 3 igu geey 6 waaye 2 ku daray waxaan haystaa 8 hydrogen waxaan leeyahay molecular formula waa isku mid laakiin chain-ka midna waa straight chain uu toosan yahay midna branch uu leeyahay ama farac
labadan hadda waxay isku yihiin wax loo yaqaan isomerism isku yihiin wuxuu kala sameyn karaa nooc labaad oo loo yaqaan positional isomerism waxa waa isla tusaalahan anoo taagan waxaan bedelayaa meesha ay taalo double bondida hadda waxay tahay kaarboonta labaad iyo kaarboonta saddexaad dhexdooda waxaan geynayaa kaarboonta koowaad iyo kaarboonta labaad dhexdooda meeshan oo kale maxaa isbedelayo kaliya meeshan labada ay ugu qorneeda waxay noqonaysaa 1 butene ay noqonaysaa oo waxay u dhaxaysaa double bondida kaarboonta koowaad iyo kaarboonta labaad dhexdooda waxaan kaloo geyn karaa haddii aan meeshan ka qaado haddii ay already meeshan ay taalay positionkan intaan ka qaada waxaan geyn karaa inta laakiin waxa markaas ma isbedelayo oo mar walba waxaa tirinta laga soo bilaabaa meesha ay double bondiga u dhowdahay noocaasna waxaan ku magacaabayaa positional isomerism oo mar walba waxaa la dhaqaajinayaa oo positionka laga qaadayaa labada dabar booskeeda number 3 alkenes waxay la gaar yihiin waxa loo yaqaan geometrical isomerism laba qaab loo qoraa mid waxaa la dhahaa cis magaceeda midna waxaa la dhahaa trans haddii aad maqashid macnaheedu waxaa laga wadaa isdhaaf cis macnaheedu waxaa laga wadaa kuwa isku aadan hadda tusaale ahaan haddii aan isla structure-kan butene-ka aan cis iyo trans u sawirno wuxuu noo noqonayaa noocan oo kale markaan dhinacanna hydrogen ka dhigo hoostanna aan 2 CH3 ka raaciyo structure-ka noocana labadan hydrogen way iska soo horjeedaan oo iswaafaqsan yihiin labadan methyl groupna way iswaafaqsan yihiin saadarteed structure-ka noocana waxaan ku magacaabayaa oo aan siinayaa magacan cis aan siinayaa trans goorma ku magacaabayaa trans waxaan ku magacaabaa haddii hydrogenadan iyo methyl groupka aan isdhaafiyo oo sidan oo kale ay ugu sawirmato CH3 meeshan aan geeyay CH3 kale inta ay imaatay hydrogen darafkaas ay jirtay hydrogen kale ku aadan na inta imaanaysa waxaan leeyahay hydrogenadu opposite markay noocan isugu noqdaan laba hydrogen laba CH3 ama laba methyl group noocaas markay igu sawiranto waxaan ku magacaabaa isagana structure-ka noocaas waxaa la dhahaa trans waxaa ku xasuusanaysaa isdhaaf cis macnaheeda way isku aadan yihiin waay labada hydrogen way isku aadeen cis way isdhaafeen trans labada methyl group si hydrogenada la mid ahaan u magacaabaya waxaan leeyahay haddii aan intaa uga gudbo magacaabista iyo isomeriska waxaa iigu xig wax loo yaqaan chemical reactionska ama falgallada uu awoodda u leeyahay inuu sameeyo alkeniska 5 nooc oo falgala ayuu awood u leeyahay inuu sameeyo alkeniska oo waxaa loo yaqaanaa chemical reactivity uu leeyahay oo high reactive waa wuxuu sameyn karaa wax loo yaqaan hydrogenation uu sameyn karaa ama waxaa lagu soo ziyaadin karaa oo lagu dari karaa hydrogen marka hydrogen lagu soo daro alkeenka wuxuu soo produce gareynayaa ama uu soo saarayaa wax loo yaqaan alkane uu soo saarayaa oo already waxaa laba dabar ay u dhaxaysaa labada carbon hydrogen banaanka ka imaatay waxay sameynaysaa breaking the bond like haddii aan structure-ka meeshan ku dhamaystiro oo aan ethene ka dhigo kan oo kale markaan magacaabay hadhow waxaan ku magacaabi doonaa ethene markaan hydrogenation ku sameeyo macnaheedu waxaa la falgelinayaa labada hydrogen aan la falgeliyay waxay break gareynayaan ama ay jibinayaan dabarta labada xabaa ee u dhaxaysa labada carbon si ay u soo produce gareeyaan ama ay u soo saaraan each carbon hadda waxay ku dhigneed laba hydrogen waxay ku dhigaysaa 3 hydrogen oo structure-ka cusub ii soo baxay wuxuu noqonayaa structure noocan uu noqonayaa waxay ii ahayd marka hore CH2 hadda waxay noqonaysaa CH3 markaan kan u baadina magacaabana waxaan ku magacaabayaa ethane aan ku magacaabayaa markaan u baado kan inaan magacaabo from waxaan ka soo magacaabay ethene oo waxaan u dhamaaday ethane mujeda alkene markaan u baahanahay inaan ka soo dhigo alkane waxaan ku sameyn karaa hydrogenation number 2 waxaan sameyn karaa wax loo yaqaan halogenation haddii aad maqashid macnaheedu waxa waaye in lagu daro compound-kan cusba sameeya element ah halogen waxaa noqon kara fluorine chlorine bromine iyo iodine midkood haddii aan dhammaan afartoodaas wada qoro fluorine noqon kara chlorine noqon kara bromine iyo iodine midkooda noqon kara waxaa leeyahay booskan hadda aan diatomic molecule of hydrogen aan kusoo bedelay ayaan si lamida waxaan ku bedelayaa ama aan soo gelinayaa mid kamida curiyaashan halogeniska ah let's say tusaale waxaan soo geliyay bromine oo kale waxaa loo yaqaanaa diatomic molecules waxay u socdaan laba mid kaliya ma jiro saadanteed waxaan leeyahay bromine sawiraya meeshan hadda ay uga ziyaaday hydrogentii labada xaba ay ka ahayd ay hal hydrogen ku darsantay waxaa ku darsamaysa gudaheeda hal bromine
bromine banaanka tegaysaa markii ay break gareeyaan double bondigan structure ka soo baxay wuxuu noqonayaa structure noocan oo kala ah labadii dabar ee meesha ii taalo way brogroobeysaa oo hal dabar gudaha ku soo harayso meeshan waxay haysanaysaa laba hydrogen iyo hal bromine dhinacan waxay haysanaysaa laba hydrogen iyo hal bromine haysanaysaa iyadana saadarteed meesha uu ka ahaa ethene hadda wuxuu noqonayaa bromo ethane uu noqonayaa di bromo hadda 1,2 di bromo ethane noqonayaan oo ah kaarboonta koowaad iyo kaarboonta labaadba waxaa ku dhagan labo bromine oo waxay iska soo bedeshay from ethene to ethane imaatay si falgalka saddexaad uu sameyn karo waxaa loo yaqaanaa hydrohalogenation waa hydrogenka hadda aan soo sheegay hore iyo halogenka oo isla socda maadaama ay di molecule ahaayeen diatomic molecule ahaayeen oo ay mid walba laba mar socotay keligeed way isku darsamayaan oo hal mar waxaa imaanayo la dhisay tusaale ahaan hydrobromic acid oo kale ama HBr ay imaanaysa markay HBr imaato waxaan isticmaalayaa rule loo yaqaano Markovnikov rule wuxuu leeyahay haddii aad hydrogen iyo halogen oo isla socdo u baahan tahay inaad ku ziyaadisid alkene groupka waxaa sameynaysaa positionka ay ku badan tahay hydrogenka waxaad u ziyaadinaysaa hydrogen meesha hydrogenada ku yar yihiinna waxaad geynaysaa halogen element ama halide element aad geynaysaa haddii aan tusaale u sameeyo oo anoo dabaqaaya structure-ka Markovnikovka uu tilmaamayo waxaan leeyahay wuxuu u dabaqmayaa sidan waxaan sawir karaa hadda tusaale ahaan waxaan haystaa butene number of hydrogens aan dhamaystiro meeshan waxaa ku jira 3 hydrogen meeshan waxaa ku jirto hal hydrogen dhinacan iyadana waxaa u imaanayso H2 haddii aan intaa kaliya u ekeeyo meeshaas aan ku dhamaado waxaan leeyahay fiiri waxaan u baahanahay inaan ku sameeyo hydrohalogenation oo aan ku ziyaadiyo hydrobromic acid aan rabaa inaan ku daro inteen dhigaya hydrogenka inteen bromine ka dhigaya waxaan leeyahay positionka ay hydrogenadu ku badan tahay ama kaarboonta xambaarsan number of hydrogenka badan waxaa siinaysaa hydrogen kaarboonta xambaarsan number of hydrogen yarna waxaa siinaysaa bromine hadda labada kaarboon ee ay double bonding u dhaxayso kuwan waaye waxaan fiirinayaa labadooda kaarboon number of hydrogens ay xambaarsan yihiin tan waxaan u jeedaa inay xambaarsan tahay hal hydrogen tan waxaan arkaa inay xambaarsan tahay laba hydrogen midda labada hydrogen xambaarsan waxaan ka dhigayaa ama aan gaarsiinayaa 3 hydrogen productiga markaan joogo productiga markaan imaanayo midaan waxaan gaarsiinayaa 3 hydrogen midaan halka hydrogen wadatana waxaan ku soo ziyaadinayaa bromine groupta siinaya ama bromine elementigaas siinaya waxaa leeyahay marka sideen u kala dooranaya selectingka sidoo u dhacaya productiga soo bixistiisa waxay kala dooranayaan kaarboonada horta shardiga koowaad waa in raadiyo kaarboonta ay u dhaxayso double bondiga kadibna aan kaarboonta xambaarsan number of hydrogen yar iyo kan badan aan kala fiiriyo tan badanna hydrogen aan siiyo tan yarna aan siiyo bromine aan siiyo ama halide aan siiyo 5 ama number 4 waxay sameyn karaan wax loo yaqaan hydration waxa lagu soo ziyaadin karaa biyo meeshan hadda acidkan hydrobromic acidka uga dari jiray waxaan ku sameyn karaa wax loo yaqaan hydration oo ah H2O da waxa loo kala qaadayaa laba qaybood inuu laba curiyayo kala oo la dhaqmaya hydrogen iyo hydroxide group marka noocaas oo la dhaqmo waxaan ku dabaqayaa iyadana Markovnikov rule hydrogen tan waxaan raacsiinayaa kaarboonta xambaarsan number of hydrogenka badan hydroxide kan waxaan siinayaa kaarboonta xambaarsan number of hydrogenka yar sida tusaalaha kore aan ku arkayba waxa kale oo lagu sameyn karaa 5 wax loo yaqaan combustion reaction ama falgalka gubitaanka dhammaan organic compoundska waxay awood u leeyihiin inay sameeyaan ama waxa lagu sameyn karaa combustion reaction waxay soo saarayaan product isku mid ah oo ah carbon dioxide plus water soo saari karaan F ama nooca falgalka ugu dambeeya waxay sameyn karaan self repeating molecule loo yaqaan polymer loo yaqaan ama process polymerization la dhahay mari karaan oo waxay sameyn karaan groupkan ethene-ka isagoo hal structure oo kaligiis iswato ayuu soo laalaaban karaa si joogto ah oo uu wuxuu sameyn karaa polyethene uu sameyn karaa wax loo yaqaan wuxuu leeyahay structure-kiisa laba qayb mid waxa la dhahaa monomer yar
polymerna macnaheedu aad u tiro badan waaye. Poly macnaheeda multi ayay ka dhigan tahay ama waxa aad u tiro badan. waxa igu xiga serieska qaybtiisii saddexaad waxa loo yaqaan alkynes loo yaqaan. waa isla unsaturated laakiin alkiinka wuxuu uga duwan yahay asaga labada carbon dhexdooda meeshii double bond aan ka haystay hadda waxaan haystaa triple bond aan haystaa. waxaan leeyahay marka u horeyso aan u baahanahay inaan qeexitaan u sameeyo alkyneska. waxaan ku qeexayaa inuu yahay unsaturated hydrocarbons. alkyneska waxaan ku qeexayaa inuu yahay unsaturated hydrocarbons. silsilada dhexdeeda laba carbon oo ku jirtana ay u dhaxayso dabar saddex xaba ah. number of hydrogenka aan ku dhamaystirayn wuxuu noqonayaa 1 oo carbon walba waxaan dhahay waxa ku ziyaadsan ama uu la soconayaa wuxuu wadanayaa 4 gram. qeexitaankeedii intaas aan ku soo koobi karaa. waxaan leeyahay unsaturated hydrocarbon waaye leh silsiladiisa dhexdeeda laba carbon oo kamid ah laga helo dabar saddex leey ama saddex xaba ah. general formuladiisi ama qaanuun ahaan waxa loo qoraa CnH2n-2 CnH2n-2 oo wuxuu uga duwan yahay alkiinka -2 daas uga duwan yahay. CnH2n uu ahaa alkiinka. markaan u sameeynayo nomenclature ama aan magacaabis u sameeynayo waxaan u dambaysiinayaa YNE aan u dambaysiinayaa YNE aan u dambaysiinayaa. dadka qaar waxay ku daraan S-ton wax kale ma sameynaysa waxay sameynaysaa jamacay sameynaysaa kaliya. waxaan leeyahay magacaabistiisii wuxuu marayaa same IUPAC ruleski ay mari jirtay alkiinka iyo alkiinku ay soo mareen. marka hore waxaa raadinaysaa silsilada ugu dheer kadib waxaa raadinaysaa inay baranji leedahay iyo in kale baranjiga meesha ay ku leedahay u nambareynaysaa baranjiga alphabetical nooc aad u magacaabaysaa alphabetical order ahaan aad u magacaabaysaa. meeshan markaan joogo waxaan muhiimada siinayaa inaan tirinta kasoo bilaabo positionka ay triple bondiga xigto. haddii aan hal tusaale ka bixiyo waxaan u magacaabi karaa noocan. waxaan leeyahay haddii aan 5 carbon oo kala samaysto meel kamid ah laba carbon oo kamid ah ka dhaxaysiyo triple bond la dhisay meeshan oo kale inta kalena hydrogenada aan u dhamaystiro labada carbon ee darafka jira waxa siisaa 3 hydrogen carbonada banaanka jiro mar walba waxa siisaa 3 hydrogen. kuwan oo kale waxba uma baahna sababtoo ah carbon walba waxa laga rabaa inuu 4 garab yeesho. carbon kan oo kale 4tiisi garab way u dhameystiran tahay. 3 garab wuxuu kula xiriiray carbonta dhanka bidix ka jirto garabna wuxuu kula xiriiray carbonta dhanka midig ka jirto saadirteed waxa hydrogen uma baahna. waxaan leeyahay labadan carbon way xiriirsan yihiin. carbontan iyo tanna markay noocan u xiriiraan iyada carbonta meeshan taala waxay u baahan tahay laba garab oo ziyaada ah oo hal garab hadda waxay kula xiriirtay carbonta dhanka bidix ka jirto midna dhanka midigta ah. waxaan ku soo ziyaadinaa markaas laba hydrogen aan ku soo ziyaadinaya. haddii aan hadda xisaabiyo number of carbons ka meesha yaalo waxay noqonayaan 1 2 3 4 5. waxaan u baahanahay inaan molecular formula qoro. waxaan leeyahay waxaan haystaa C5 number of hydrogens ki formula aan oo xifdisan CnH2n-2 ayaa waxaan rabaa inaan actual number of hydrogen kala xisaabiyo. number of hydrogen ka haysto waxay noqonayaan 3 iyo 3 6 labadan uge 8. formulada muwaafaqsan tahay aan fiiriyo Cn 5 carbon aan haystaa meesha ay 8 ka tahay 2 iyo 5 hadaan isku dhufto waxay siinaysaa 10. waxaan ka jarayaa 2 waxaan joogaa 8 hydrogen. structure-ka qaabka loo qoro haddii aan saas u fahmo waxaan u baahanahay inaan magacaabista sameeyo. marka ugu hore waxaa raadisaa oo dhigi jiray longest chain-ka ama parent chain-ka waxa loo yaqaan silsilada ugu dheer ee xambaarsan carbonada waa 1 2 3 4 5 carbon ee xambaarsan tahay. baranji may leedahay maya wax baranji oo hadda meesha iiga muuqdo ma jiraan. double bond may leedahay triple bond may leedahay single bond maya triple bond aan ku arkaa meeshan. waxaa kasoo nambareynaysaa dhinaca ugu dhow ee triple bond ay taalo meeshan aan nambareynta ugu dhow markaas 1 2 carbonta labaad ay yeelanay. haddii aan dhinaca kale ka tijaabiyo fiiri 1 2 3 ay noqonay. mar walbo numberka waxaa siinaysaa mudnaanta carbonta ugu soo horeysa ee la xiriirto ama ku dhagan dabarta labada xaba ama saddexda xaba. hadda dhinacan midigta haddii aan ka soo tirina aan dhaho waxay noqonay carbonta saddexaad laakiin dhinaca bidixda markaan ka imaado waxay noqonay carbonta labaad. saadirteed iyadu waxaan siinaa nambarada ugu yar functional groupkaas inaan aad u ilaaliyo u baahanahay. waxaan siinaa
nambarada ugu yar waxaan leeyahay 1 2 3 4 5 waxa iigu xigo iigu dambeeyo inaan magacii asoo iswata aan qoro waxaan leeyahay kaarboonta labaad hyphena waxa u dhaxaysiin jiray magaca iyo numberiska waxaan 5 kaarboon markaan haysto waxaan ku magacaabaan dhahay bent 5 kaarboon markaan haysto waxaan ku magacaabayaa bent maadaama ay triple bond meesha ii taal unsaturated hydrocarbon oo alkyne la dhahana aan hayay waxaan u dambaysiin jiray suffixkan la dhaho ines ama yne u dambaysiin jiray waxaan dhahayaa bentine aan leeyahay waxaan dhahayaa 2 bentine mujeda 2 macnaheedu kaarboonta labaad waxaa ku dhagan triple bondida bentine meelaha qaar waxa arkay iyadana in sida loo qori karo meelaha qaar noocana loo qori karaa tuwada waxa la dhexgelinayaa qoraalka dhexdiisa iyadoo uun ay tilmaamayso positionka ay taalo triple bondida ay tilmaamayso waxa leeyahay sidii alkiinka si lamida wuxuu yeelan karaa isomer waxa la dhaho oo molecular formula isku mid ah laakiin structure kala duwan wuxuu yeelan karaa chain isomerism waxa la dhaho waxa la warwareejin karaa oo la qaadi karaa mar walba meesha ay taalo positionka triple bondida oo hadda waxay taala kaarboonta labaad iyo kaarboonta saddexaad ee dhexaysa waa la soo qaadi karaa oo waxa la keeni karaa between carbon 3 iyo carbon 4 waxa kale loo celin karaa between carbon 1 iyo carbon 2 mar walba oo ay triple bondida soo dhaqaaqdo number of hydrogenska ayaa kaliya hoos u dhacay ama yaraanayo meesha ay ka dhaqaaqdeen number of hydrogenska ayaa ziyaadayo isomerkaas koowaad waxa loo yaqaanaa magaciisa chain isomerism Allah waxaan ilaha noocan waxa la dhahaa position isomerism waxa la dhahaa position isomerism midka ay dhaqaaqayso dabarta isomerka noocaas waxa loo yaqaanaa position isomerism labo waxay sameyn kartaa chain isomerism chain macnaheedu waxa waaye midkan hadda wuxuu ahaa silsilad furan oo toosan wuxuu yeelan karaa farac hadda waxaan haystay 5 kaarboon waxaan ka dhigi karaa 4 kaarboon kaarboonta shanaad waxaan u yeelayaa isla ano C5H8 kan aan ka bixinin molecular formuladaas waxaan sameyn karaa qaab noocan oo kala ah 1 2 3 4 kaarboontan oo kale waxa ku dhajisaa CH3 ku dhaji waxaan u dhameystirayaa kaarboonta labaad ayaa waxaan rabaa iyadana inaan siiyo meeshan oo kale kaarboonta koowaad iyo labaad waxaan siiyay triple bond midkan waxaan siinayaa banaankan hal hydrogen midan dhexe kaarboontan wax ba hydrogen uma baahna sababtoo afarteeda garbood way buuxaan meel waxay uga dhigan tahay kaarboon triple bond in kaarboon kale kula xigta kaarboontan waxa ka dhiman hal hydrogen tan waxay qaadanaysaa 3 hydrogen hadii hadda aan soo xisaabiyo fiiri number of hydrogens meesha iyaal waxay noqonayaan 3 iyo 3 oo 6 ah labadan u geey 8 molecular formula waxa la iga rabay 8 hydrogen in haysto number of carboniska 1 2 3 4 5 carbon waxa leeyahay marka noocan waxa loo yaqaanaa chain isomerism hadda kan oo kale marka la yiraahdo magacaabo markaan u baahdo kan oo kale inaan magacaabo shuruucdii aan ka soo fiiriyo silsilada ugu dheer ee xambaarsan kaarboonno meeqa waaye 1 2 3 4 kaarboon ee xambaarsan tahay silsilada ugu dheer branch ma jiro methyl group ku dhagan intuu ku dhagan yahay methyl groupka wuxuu ku dhagan yahay 1 2 3 kaarboon saddexaad ku dhagan yahay tiriska waxa ka soo bilaabay positionka uu triple bondiga xigo meeshaan aan ka bilaabaya 1 2 3 this will become carbon 4 noqonaya waxaan leeyahay kaarboonta saddexaad waxa ku dhagan group la dhaho methyl ku dhagan oo branch 3 methyl noqonaya kaarboonta koowaadna wuxuu noqonayaa 1 4 kaarboon aan haystaa butene ani la butane maadaama aan triple bond meesha ku hayo hadda magacii hore iyo magacan difference u dhaxay kii hore wuxuu ahaa 2 bentine u ahaa 5 kaarboon silsilad furan oo toosan ay ku jireen isla molecular formulada waxaan ka soo saaray isomer labaad oo chain isomer aan ku magacaabay structure magaciisa uu noqday 3 methyl kaarboon saddexaad waxay leedahay farac methyl la dhaho methyl group kaarboonta koowaad ayayna triple bond ku dhagan tahay iyadana isomer noocaas aan u sameyn karaa waxa leeyahay hadii chemical reaction kooda iyada aan soo gaaro waxaan ku sameyn karaa wax loo yaqaan hydrogenation oo waxaan burburin karaa saddexdan dabar mid kamid ah intaan ka qaado ayaan waxaan ka soo dhigayaa from alkyne to alkene hydrogenation labaadna waa lagu sameyn karaa oo waxaan gaarsiinayaa to alkene aan gaarsiin karaa b waxa lagu sameyn karaa wax loo yaqaan halogenation
oo afartii curiye ee aan soo tixay mid kamid ah ayaa lagu soo ziyaadin karaa si hydrohalogenation adigoo rulekii hore ixtiraamaya. waxaa kaloo lagu samayn karaa hydration iyo combustion reaction oo ah falgal dhammaan organicsku ay wadaagaan. maanta muraajacadii intaasaan kusoo gaabinayaa hadduu ilaah yiraahdo. inta aan maalinka xiga ku kulmi doono waxaan kaga tegaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi